gabadhan iyadoo aabihii taleefka kula hadlayso ninkan gaariga wata taleefka ka qaadana waatana marka way kasoo daba orday isagana isagoo faraxsan oo wuxuu arkaa in gabadhan la hadlaysa aabaheedna inuu yahay boolis waa kana marka gaarigu bari qabana wuxuu ku dhahaa marka tuuga tahay gabadheeda taleefka ka soo xaday Soomahan intuu screenshot ka qaato taleefkii ku jira isagana tuug gaabayo iska ahay waa kana intuu cabsado gaariga gadaal u soo celinaa gabadhii u soo laabana iyadana waxay ku dhahaysaa wax kala ma haysta iska kayday isagana waa kana taleefkeedu inta sii wuxuu dhahaa iska kay cafi taleefkaaga qaado iyadana weydiidaysaa waxay dhahaysaa hore u qaadatay oo orod iska qaado waa kana marka intuu ka soo daba ordo wuxuu ku dhahaa hadda waa ku soo celiyo maaha xoogaa kadib niman boolis aabeed u soo diraa waxay ku dhahayaan sidee tahay soo ma fiicnid iyadana waxay dhahaysaa waa fiicanahay askarigan wuxuu ku dhahaa midkan yow noo ahay iyadana waatana waxay ku dhahaysaa midkan iska barta saaxiibkay waaye wax kalena ma jiraanay dhahaysaa waxaa rabnay in aabahay baraanka ku sameeyo waa kuwaana markii nimankii askarta ay baxaan midkan wuxuu dhahaa aada kugu mahadcelinaa iyadana waxay dhahaysaa waxaa kugu casuuma casho oo aabahay leeyahay marka waa inaa imaataa isagana wuxuu dhahaa aniga ma diidi karo meeshaas waa imaanaa ballan waaye iyadana waxay ku dhahaysaa maba diidi kartid Soomahan meeshaas waa inaa imaataa caawa yaana ka weyn saaxiibkiina waa kana wuu yaaba yahay adigana muuqaalka leeg saare xilligii qadada la gaaro odagana wuxuu taagan yahay baraankigiina another level waaye gabadhiisana waxay dhahaysaa Soomahan baraankiga ugu horeeyay aan kugu sameeyo aabaheedna wuxuu dhahaa waa ka helay sidaa u sameysay laakiin wuxuu dhahaa waxaan camal mar dambe ha igu sameyn gabadhiisana waxay dhahaysaa aabba ninkan waxaa isla soconaa 6 bilood xitaa mar dhow labadeena cunuga noo dhala rabay dhahaysaa odagan iyo saaxiibkiina waa kuwana weeyaaba yihiin kadib aabeeda wuxuu ku dhahaa midkan baraankii kale igu sameynaysid waa Soomahan midkan fulinimo darteeda lugaha la girgiriirayaan kadib waa kana wuxuu ku dhahaa maya midkan baraankii ma run waay odaygana waa kana baxa wuxuu dhahaa wax yar isagoo waa nii soo laabana ninkan isagoo yaabana wuxuu ku dhahaa aabaha maxaa u sheegtay adiga maxaa ka qaldan iyadana waxay dhahaysaa ka waran hadaa isguursano bishan soo socoto iyaga oo wada sheekaysanaya waxa imaanaya aabihii oo dhalo wato wuxuu dhahaa dhalada waxa ilaalinaya 30 sano waxaana ugu talagalay ninka gabadheeda guursanayo ninkan odaygii wuxuu ku dhahaa wax yar rabaa inaan kuu sheego marka dhaladan ha furin oo ku dhahaa inta kuu sheegayo wuxuu dhahaa horta gabadhaada iyadoo laamiga taagana taleefkeeda ka xaday iyadana waxay ugu qasbaysaa inaan iska dhigo ninkii guursalahay iyo saaxiibkeedba wax oo cunug noo dhala rabana ma jiro dhahaa iyada dhan hadda dhow isbaranay marka sidoo cunug nagu dhala karaa ku dhahaa odaygana gabadhiisa la hadlaa wuxuu ku dhahaa wax yar banaanka ma nagu sugi kartaa iyadana waxay isku dayaysaa inay diido laakiin wuxuu ku dhahaa 2 daqiiqo gudahood waa ina banaanka ugu baxdaa gabadhii markii ay baxday ninkan odayga wuxuu soo arursanaa waraaqado badan kadib ninkan uu dhiibaa wuxuu ku dhahaa midkan waa kiiska tuuganimada waxaana laga yaabaa 5 sano xabsi inaad soo qaadato midkan kalena waa kiis kale sidoo kale asagana waxaa laga yaabaa inaad 10 sano xabsi soo qaadato midkan kale ka sii daran oo dhahaa waxaa laga yaabaa in xabsi daa'in lagugu xukumo wuxuu ku dhahaa marka intaanoo dhibaato inaysan kugu dhicin hadaa rabtid waa inaad gabadheeda guursataa adigana gabar la isku qasbaayo marka aragto muuqaalka adeeg saare